السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaada dhammaan khiyaarta ku xiran channelkeena ee Casper Option Somali. Insha Allah halkan waxaan kaga hadli doonaa waxa loo yaqaano package option oo dhalinyaro badan inta badan ay soo weydiiyaan anaguna aan inta badan kasoo hadlay. Laakiin waxaan rabaa caawa inaan kaga hadlo video faahfaahsan what is the package option, sida lacag loo dhigtaa oo deposit, sida lacag loola baxaa, how to withdraw. waxaan rabaa inaan su'aalo badan ka jawaabo oo dhalinyaro inta badan ay soo weydiiyeen. Horta waxaan rabaa inaan first one ka bilaabo sidee lacag loo dhigtaa. Horta package option su-aasha koobaad horena uga soo jawaabay oo ahayd ma yahay mid yar oo la isku halayn karo, ma yahay suuq u shaqeynaya sida Casper Option iyo IQ Option oo kale sida u shaqeynaya maadaama uu ka mid yahay suuqyada optionska ama sida scalping oo loo trade gareeyo. Horta suuqan all the way waan kasoo hadlay dhowr jeer, wuxuuna yaalaa channelkeena dhexdiisa, laakiin waxaan rabaa inaan si faahfaahsan caawa uga hadlo. Horta suuqani intaad arkaysaan kuley indhiina idin macalina, intaad arkaysaan oo dhan suuqan lacag baa lagu dhigtaa. Intaa aad arkaysaan oo dhan haddii ay yihiin lacagahaas crypto oo ay ugu horeyso Bitcoin, Ethereum-na ay ku xigto, ilaa iyo lacagaha arkaysaan oo e-payment oo ugu horeyso Perfect Money, Adcash, waxa loo yaqaan Web Money iyo Chayton, iyo lacagaha cardska oo sida Mastercard iyo Visa card oo kale iyo Mastercard oo Euro ah. Waxaan rajeynayaa in lagu dhigto ilaa all the way imise qaab, 1 2 waxa loo yaqaan haddii hoos u baxno 3 qaab baa loo dhigtaa, mid card, midna e-payment iyo cryptocurrency. 3 qaab baa lacag loo dhigtaa suuqan, waana suuq yeela waana kasoo hadlay. Okay, suuqa 3 qaab baa lacag loo dhigtaa. Markaad Soomaaliya joogtana waxaa kugu fudud 2 qaab inaad lacag dhigato, ima inaad ku dhigato Perfect Money iyo ima inaad ku dhigato Mastercard oo Visa card. waxaan rajeynayaa inaad fahantay. haddii aan mar labaad kugu celiyo, haddii aad Soomaaliya joogto fadlan 2 qaab lacagta ku dhigo, ama Perfect Money ku dhigo ama Visa card oo Mastercard ku dhigo. Visa card waxaa jira dhalinyaro badan oo i weydiiyey. Visa card waxaa u digaysaa shirkadda Dahabshiil ama shirkadda Dar es Salaam Bank ama shirkadda IBS Bank, meelaha xarumaha kugu dhow u tag, kasoo furo card Visa card ama card Mastercard. haddii aad xataa haysato card IBS Bank waa caadi oo waad maaragtay waad ku deposit garaysan kartaa. Okay, markaad intaa ka nimaadno, haddaba waxaa jira su-aal kale oo ah sidee lacag loola baxaa. haddii aan ka hadalno sida lacag loola baxo, waxaad imaanaysaa meesha ay ku qoran tahay meeshan oo ay ku qoran tahay profilekaaga. markii aad sidan u timaado, kadib waxaad saxanaysaa, waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay profilekan kale. Profileka kale ayaad kusii dhufanaysaa gudihiisa si aad u saxato userkaaga iyo waxaaga ood emailkaaga verify waxaan uga qaato. haddii aad intan iska saxdo all the way xogtaadu way dhammaystiran tahay, lacagtan way kuu baxaysaa, markastana cilad kuguma keenayso. First namekaaga waa iska bixinaysaa, last namekaagana waa iska bixinaysaa, emailkaagana hadda waa unverified. halkaa magaa rabtaa inaa unverified ahay, waa soo verify garaynaysaa. kadib waxaad gelinaysaa phone numberka, kadib waxaad gelinaysaa date of birth-ga, kadib waxaad gelinaysaa required date-ka, kadib halkaas status oo identity statuskaaga oo hadda iminka unverified ah wuu verify garaysmaysaa insha Allah. wuu verify garaysmayaa insha Allah. fadlan iga raadka bixaya. Okay, hoos baan soo deginaa haddana document requirement imaanaynaa. kadib xaggan waa Soomaaliya waa inoo tahay oo document type-kaaga xagga waa iska dhaafaysaa waa option, document numberkana waa iska dhaafaysaa waa option. kadib waxaad gelinaysaa choose file. halkan iyada choose file ay ku qoran tahay waxaad gelinaysaa e-bankigaaga ama e-ban waxa dhaho. haddaadan e-ban lahayn oo kusoo dhigata lacag Perfect Money inaad culays kuguma hayso, xogtan oo dhan waa iska dhaafi kartaa oo waxba upload garinaysid oo dhib kuguma haynayso. intaa markaa soo samaysid already akoonkaagu waa verify garaysan yahay, xogtaada iyo waxaaguna ayrlatay way kuu baxayaan, lacagtaadana wax dhibaataa kuguma haynayso. waxaan rajeynayaa midda inaad fahanteen. fadlan haddaadan fahmin ku celcesho, waad fahmi doontaa insha Allah. marka waxaan rajeynayaa qaabka lacagta loola baxay inaad maaragtay documentiga soo buuxin doonto oo aad maaragtay akoonkaaga soo verify garayn doonto hadduu Gmail yahay iyo haddii uu maaragtay magacaaga yahay.
markaa soo farfaagarayso lambarkaaga soo gelisana all the way caadi ku yahay. midda aan idiin sheegayna waxa weeye haddii aad ku dhigatay dokumentiga kuma anfacayo ama waxba ku tari maayo oo culays kugu hayn maayo. haddii aad lacag ku dhigatay perfect money all the way caadi buu kugu yahay, adiga markaa dhib kugu keeni maayo. laakiin haddii aad ku dhigatay visa card xoogaa document baa lagaga baahayay, oo waayo waxaad leedahay iban, waxaad aad leedahay haddii aad kaadhkan isticmaalayso ibankaaga wayna soo upload garaysaa. okay, waxaan rajeynayaa midda inaad fahanteen. suuqana waa package option, waa wada ognahay. maandhawood waxaan kasoo hadlay ogeysiiska iclaamka muhiimka oon rabay inaan idiin sheego. wuxuu ahaa maandhawood waxaan kasoo hadlay inaan bixin doono 1 bil oo free oo signalisa. waxaan soo dhigay telegramkeena weyn, linkiga groupka telegramka. fadlan haddaan telegramka weyn ku jirin, waxaan soo dhigi doonaa commentiga u horeeya kasoo raac kuna soo biir telegramkeena. xaggaasaan soo dhigay telegramka linkiga ama lasoo dhigi doono signaliska suuqa package option muddo bil oo free ah, inaad xaggan kasoo raaci doonto kadibna aad kusoo biiri doonto groupka free signaliska insha allah. wixii su-aalaad qabtan insha allah waxaan rajeyn doonaa commentiga inaad igu weydiin doonto. fadlan haddaad wax su-aala qabto commentiga igu weydii. please subscribe, like and share and comment. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.